Assalaamu calaykum. Waa idin salaamay dhammaan walaalaha ku xiran kanaalka. Waxaan idinka raali gelinayaa muddadii aan idinka maqnaa mashquul awgiis. Maanta waxaan idin hayaa qiso ama dhacdo la yaab leh oo ka dhacday mid ka mid ah wadamada Carabta. Haddii aad tahay qof qisooyinka aad u jecel sideeda oo kale, shaax ama cabitaan wixii aad heli karto soo dhaweyso ee ila soco. qisadani waxay dhex martay wiil dhalinyaro ah iyo lamaane. Waxaan ka xumahay in aan dhalintan magacyadooda haynin, laakiin si dhacdada aad u fahantaan magacyo ayaan ula baxaynaa wiilasha. Wiilka dhalinyarada ah aan ku magacaawno Caamir, kan xaaslaha ana Salmaan. Lamaanahan waa Salmaan iyo xaaskiisa ayaa ka soo safray magaalada Taif oo soo safray caasimadda dalka Sacuudiga ee Riyadh. Meel dhexe markii ay marayaan ayaa gaarigii ka ciladoobay. Baabuurkii markii uu ka halaabay ayuu ku soo leexiyay meel yar oo laamiga dhinaciisa ah, isagoo meeshii taagan oo qof walba oo laamiga soo marana uu dhaafayo. Ayaa wiil dhalinyaro ah oo Caamir oo gaari yar wata meeshii soo maray oo ku soo leexday. Waxa uu ku yiri, "Maxaa idinku dhacay?" Waxay ku jawaabeen, "Gaarigii ayaa naga ciladoobay." Caamir gaarigii ayuu eegay maadaama uu makaanig ahaa, aqoon badanna u lahaa ciladaha ku yimaada gawaarida. Waxa uuna ogaaday in gaariga ciladiisu ay tahay cilad weyn, isla markaana aan halkan lagu xallin karin. Caamir ayaa u sheegay in gaariga halkan lagu samayn karin, una baahan yahay in garaash la geeyo. Lamaanihii oo carruurtooda watay ay xaaladdu ku sii adkaatay, laakiin Caamir ayaa ka farxiyay oo ku yiri, "Maadaama aad tihiin lamaane iyo carruurtooda, meeshaana ay aad u kulushahay, waxaan idin hayaa fursad aad uga bixi kartaan dhibta idin haysata." Lamaanihii ayaa ku farxay hadalka Caamir, kuna yiri, "Maxay tahay fursadda?" Caamir ayaa ku yiri, "Gaarigayga ka haysta oo ku taga magaalada, anigana waxaan la sii joogayaa gaarigeena. Marka aad magaalada tagtaan, aniga iyo gaariga waxaad inoo soo dirtaan gaari weyn oo ina wada qaada oo magaalada na geeya. Kadibna aan Riyadh isugu imaano, halkaasna aan ku kala wareegsano labada gaari." Lamaanihii ayaa la yaabay ninkan aysan garanayn, haddana wanaagga intaa leeg u sameynaya. Sidii ayay sameeyeen, gaarigii ayay qaateen kuna tageen magaalada. Kadib gaari weyn oo xamuula ayay u soo direen ninkii iyo gaarigoodii halaysnaa. Markii ay Riyadh isugu yimaadeen ayay halkaasi gawaaridii ku kala bedesheen. Salmaan ayaa ku yiri ninkii caawiyey, "Warniyahow, abaal weyn baad noo gashay, maxaan kugu abaalgudaa?" Ninkii ayaa ku yiri, "Saaxiib, wax abaalgud ah kaama rabo. Wanaagga aan idiin sameeyeyna uma samayn inaan abaalgud idinka qaato." Taleefanadii ayay kala qaateen, wayna kala tageen. Muddo kadib, Salmaan ayaa maalin maalmaha ka mid ah wacay ninkii muxsinka ahaa ee Caamir. Taleefanka waxaa ka qabatay Caamir xaaskiisa, waxayna u sheegtay in Caamir uu xiran yahay. Markii uu sababta weydiiyeyna, waxay ku tiri, "Xabsi ayuu ku jiraa, waxaana loo xiray dad uu dayn ka qaatay ayaa waxaa dhaaftay xilligii lacagta laga rabay, kadibna way xirteen." Salmaan oo aad uga xumaaday ayaa ku yiri xaaskii Caamir, "Waxaad ii sheegtaa xabsigii uu ku xiran yahay." Xabsigii ayay u sheegtay. Salmaan ayaana xabsigii aaday isagoo lacag dhan 100,000 oo riyaal horay u sii qaatay. Waxa uu la kulmay taliyihii xabsiga haystay. Isbarasho dhex martay Salmaan iyo taliyaha kadib, markuu ogaaday inuu Caamir ku xiran yahay jeelkan, ayuu Salmaan taliyihii ku wareejiyay lacagtii. Waxa uuna ku yiri, "Lacagtan Caamir u geey, deynta lagu leeyahay ha isaga bixiyo. Haddii uu ku weydiiyo qofka lacagta u keenayna, ha i sheegin oo waxaad ku dhahdaa qof khayr qaba ayaa kuu keenay." Taliyihii oo aad ula yaaban arrintii ayaa u yeeray Caamir. Lacagtii ayuu ku wareejiyay, wuxuuna ku yiri, "Lacagtan waxaa kuu keenay nin diiday inuu magaciisa sheego." Wuxuuna ku yiri, "Deynta isaga bixi." Caamir ayaa taliyihii ku yiri, "Taliya, aniga lacagta la igu leeyahay aad ayay uga badan tahay lacagtan, waxna iima gasho. Waxaad samaysaa maxaabiista xabsiga igula xiran, kuwa lacagaha yaryar lagu leeyahay ii soo ururi. Iyaga ayaan ku sadaqaysanayaa, xorriyadoodana dib ugu soo celinaya." Taliyihii oo markii hore la yaabanaa ninkii Salmaan ahaa ee ninkan Caamir ah oo uusan garanayn lacagta u keenay, haddana diiday inuu magaciisa sheego, ayaa haddana la sii yaabay ninkan Caamir ah ee lacagta intaa la eg loo keenay, ee isagoo deynta lagu leeyahay isaga yarayn kara maxaabiistii kale ku sadaqaystay. Caamir waxaa u suura gashay inuu xabsiga ka saaro 7 ka mid ah maxaabiistii la xirnayd. 3 usbuuc kadib ayaa Salmaan oo rajeynaya in saaxiibkiis xabsiga laga soo sii daayay wacay xaaskii Caamir, wuxuuna weydiiyey in la soo daayay saaxiibkiis. Xaaskii Caamir ayaa u sheegtay in weli xiran yahay xaajigeeda. Salmaan oo aad uga carooday inaan la soo dayn Caamir ayaa xabsigii ku laabtay. Taliyihii ayuuna ku yiri, "Taliye, Caamir maxaad u soo dayn weyseen? Aaway lacagtii aan kuu dhiibay?" Taliyihii ayaa Salmaan ku yiri, "Ninkii aad lacagtii iigu dhiibtay waan u geeyey lacagta, laakiin lacagta lagu haysto aad ay uga badan tahay 10,000 oo riyaal, waana 3 milyan oo riyaal. Wuxuuna iga codsaday maadaama lacagta aysan isaga xabsiga ka sii dayn karin inaan u keeno maxaabiista lacagaha yaryar lagu leeyahay. 7 ka mid ah maxaabiistii la xirnayd ayuuna ku sii daayay lacagtii."
Salmaan ayaa la yaabay ninkan Caamir ah wanaagiisa, isagoo bilaabay siduu ku keeni lahaa lacagta 3 milyan ah. Deymo iyo wixii uu heli karay ayuu soo raadiyay. Ugu dambeynna wuxuu u geeyay taliyihii. Sidaasi ayaa Caamir xabsigii looga sii daayay. Haddaba daawada qisadan waxa ay tilmaamaysaa adduunkan si kasta oo ay dadka ku nool u xun yihiin, haddana dad wanaagsan inay joogaan. Ilaa xad qof aadan aqoon u lahayn inaad wanaag intaas leeg u samayso waxa inoo muujinaysaa rajo aad u qurux badan. Waxaa la inooga baahan yahay inaan isku naxariisano meel walba oo aynu joogno si Allah subxaanahu wa ta'ala inoogu naxariisto. walaalaha aan jeclahayo muuqaalkeena maanta intaas ayuu nooga eg yahay. waad ku mahadsantahay waqtigaaga qaaliga ah ee aad noogula dhamaysatay muuqaalkan. waxaan kaa codsanaynaa inaad like dhahdo haddii aad ka heshay, siina share garayso. mahadsanid. waa inoo muuqaalka xiga insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.